maanta waxaan soo koobaynaa fil lagu magacaabo Inuu Shaki ijiro waninta dhaxad ku jira kaasoo qoyskiisa soo iibiyay guri laakiin iyagu kuma faraxsan gurigan cusub sababta waxa ka cabanayeen inuu ka yaryahay guriga ku xiga qoyska wuxuu keenay cunno si ay u dabaaldegaan laakiin badalkii wax qabtay maqaaxi halkaas ayagana ka soo casheeyeen ijiro wax kala muusaman ee kaliya dabaaldegay isagoo jooga goobta shaqadiisa booskiisa ayaa ka cabanayay mashruuca cusub waxaanu rabay inuu iibiyo energy drinkinka taasoo ka dhigaysa mid khasaare badan inuu wuxuu raali galiyay booskiisa wala dadka horkooda halka maamulka dadka hortooda ku canaananayay wuxuu soo aaday gurigiisa kadib maalinta adkeeda kadib jidka ku arkay tuuga dhacsoon sidiisoo kale ah waxaan la soo jeestay abti kadib waxa artay gabadhiisii taasoo ku eedeysay inuu yahay fulay kadib markii fulay guriga banaankiisa ayuu arkay dhankiisa u soo socda kaasoo ka tagay qofkii lahaa magaceeduna waa Hanoka kadib xaaskiisa artay ninkeedu haysta ay waxaana ku dhahday iga fogay aygan gacantana ka saartay warqada caafimaadkiisa taasoo loo baahay inuu sameeyo baaritaano kale ijiro waxa soo baxday warbixin aanu jeclaysan markii dhakhtarku tagay dhakhtarkuna waxa uu sheegay inuu hayo kansar kaasoo haya stage 4 waxa uu noolan doonaa 2 bilood kadib wuxuu wacay xaaskiisii waana ka qabowday moolkii ay ku dhageystay haddana wuxuu wacay gabadhiisii sidoo kale inantiisana way ku dhageystay kadib xilliga cashada ay isku dayeen inuu sheego wax ku saabsan caafimaadkiisa kadib waxa biloobay inay ku eedeeyaan waxyaabo yar halka xaaskiisa ka dalbatay inuu ka fogeeyo ayga guriga iyadoo fiirinay xanuun ka muuqda indheeda ijiro waxa uu soo baxay dibadda isagoo rabay in ayga fogeeyo uu raali galiyay Honoko waxaanu ka codsanay ka fogaato laakiin Honoko way ka soo daba artay waana ka hadweeday kadib wuxuu ogaaday inuu yahay xayawaan qurata ee isaga ixtiraamaya kadib wuxuu ka raali galiyay sidoo xumeed ay loo dhaqmay waxa uu arkay in loo heero kaasoo fadhiyay baakinka wala isagoo murugaysan kadib labadu waxay fiideen kor waxaan arkay waxa iifaya waxa godo socda kadib waxa ku dhacay agtooda kadib iftiinkii ay la suuxeen halka Honoko qaylinayay kadib wuxuu soo kacay Honoko dhakiisa socda markuu soo kacay wuxuu arkay shay cajiib ah kaasoo intiisi oo sidiisii hore ku soo noqday kadib ijir wuxuu wada gurigiisa si uu quraacdo kadib wuxuu dareemay in cunnadu u dhadhameyn waxaanu carraxa gabiya waxaanu dareemay biyo badan uu doonayo kadib qolkiisa ayuu aaday gacantiisa bidixna ka soo baxday qaacado badan waxaan isku bedeshay qori aad u weyn jirkiisu dhan waxa biloomay inuu furfurmo waxaanu isku bedelay aaladooyin kadib waxa jirkiisu ku soo noqday sidiisii hore markii xaaskiisu ay rido ku soo furtay inantiisana wax isku fasan hayeen hero kaasoo kii waxay soo joogeen aabaheed waxa go'aansan saaxiibkiisa tusay awoodiisa ee joog awoodaas oo helay xalay kadib gacantiisa ayuu kala fidiyay waxaanu ku toogtay shimbir agtiisa marisay haddana wuxuu geeyay baakinka gawaarida kuwaasoo tusayo inuu maskaxdiisa ku maamuli karo gawaarida jirkiisana wuxuu ku soo saaray aalada badan isla markaasna ijiro wuxuu ka soo baxay shaqadiisa waxaanu arkay shimbir taala dhulka taasoo rafanaysa kadib wuxuu qabtay si naxariis leh kadib wuxuu awooday inuu daaweeyo waanu la yaabay taas ijiro kadib shimbirtu waa duushay ijiro wuxuu meel dheer ka maqlay qof rafaadsan oo doonaya caawimaad kadib si dhaqso leh ayuu yimi dhakhtarkii waxaanu arkay wiil yar ku dhow inuu dhinto gacmihiisana ay si naxariis loo qabtay wiilkeera kadib wiilkeerasna waa caafimaday isagoo faraxsan ayuu ka soo baxay dhakhtarkii waxaanu ku faraxsanaa maadaama caawiyo qof dhinaca kale hiro saaxiibkii waxa qashaadaya asxaabtiisa kadib hiro ayaa ku raali kaliya saaxiibkii kadib way diideen kadib hiro ayaa gacanta ka muroojiyay mid kamid ah raggiis qashaadaya saaxiibkii ilaa uu ka siiyay wax kasta ay ka qaateen kadib fartii ayuu ninkii ku aadiyay intaanu dilin ayuu saaxiibkii ka soo gaaray kuul intaas ku filan iska daa awoodis waxa la yaabtay gabartaasoo lagu magacaabo Ofion kadib hiro hooyadii ay la soo hadashay iyadoo ka taxadiraysa caafimaadkeeda kadib hiro iyo qoyskiisii ayaa wada casheynaya oo farxad ay wada qaadanayaan laakiin farxadaas waxay ka xanaajisay hiro oo aabihii kuma kalsoona hooyadii aabina mar hore ay isku fureen kadib farta ayuu ku tagay aabihiisa isagoo isla dil ayuu xaqiiqsaday inuu aabihii yahay mid ka fikraya kadib guriga ayuu ka soo baxay isagoo kaligiya waxaanu maqlay farxad ka soo baxsay guriga agtiisa ah kadib guriga ayuu ku laabtay dhammaan qoyskii joogay guriga dhan waa walaayay kadib qeeladii ayuu maqlay ijir waxaanu soo caaray gurigii waxaanu arkay gabadh madaxa looga dhiftay xabad waxaanu isku dayay inuu badbaadiyo laakiin waxa ogaaday awoodiisina ku shaqeynayso qofka nool ku dhata kadib wuxuu fiiriyay qolkii waxaanu arkay ijir qolka ku jira isagoo dadkii dilaya waanu gartay markii inuu yahay ninkan hero halka hero xabad ka jira ijir laakiin ijir waxba kama noqon xabadii oo soo kacay markiiba kadib uu kacay waxaanu carray dabada waxaanu arkay hero oo duulaya xaga cirka kadib jooga wuxuu saaxiibkii hero uu ku eedeynay inuu yahay qofka xaalada ka dambeeyay dilkii loo geystay magaalada laakiin hero kama marmarsan oo waa qortay inuu yahay qofkii ka dambeeyay xaalada dilkii magaalada ka dhacay wuxuu saaxiibku sheegay inuu yahay dadka ugu awood badan leh mana kala jecel cid diliyo iyo cid deenayaba hero hooyadu wuxuu sheegtay in hadda wixii ka dambeeyay aan isaga la noolaan doonin inuu noolaan doono aabihii sababtoo iyada waxa ay kansal kadib hero ayaa hooyadii ku yiri aniga laanta noolaan kan maayo waana caafimaadaysa ijiro ayaa qoyskiisu sheegaya in shaqada hoos lagu dhigay kadib xaaskiisa ayaa ku qeelisay iyadoo ka warwaraysa deemaha lagu leeyahay inantiisina way ku qeelisay waxa ku jiray karti laan telefoonina waa tahay ijiro ayaa la barortay inaanu badbaadin karin qoyskiisa laakiin awood u leeyahay inuu ka hortago dilayaasha kadib ijiro ayaa maqlay hero oo u socda inuu soo dilo dil kadib wuxuu go'aansaday inuu soo afjaro ninka dadka bilasabaanta u dilaya waanu biibay isagoo ista aygiisii kadib wuxuu tagay hero saaxiibkii oo Jaco ah kadib wuxuu sheegay in isagii saaxiibkii ay leeyahay wado kale oo jiraan laga baahayay inuu ogaado awoodiisa ku jirta kadib tababar ay galeen
hiirona wuxuu awoodiisa ku badbaadiyey hooyadii oo kansalkii ayuu ka daweeyey kadib dhakhtarka ay soo aadeen dhakhtarkuna wuxuu sheegay inay kansalkii ka bogsatay hooyadii kadib labadoodu waxay soo aadeen guriga inta si socdeen ayaa waxaa ka hor yimid askar kuwaas oo weydiinaya dilalka xaalad ka dhacay magaalada hiirona wuxuu isku dayay meesha ka carro intuu carrayna meesha ku sii dilo dhowr askari halkay ku kala xabadeen isaga halkiina ayuu ka booday hiiro oo waa carray baxsashadiisana waxay qabsatay baraha bulshada maalmo aysan meel ku dhinto laakiin si wanaag gabadh lagu magacaabo Shayan ayaa ka codstay inuu ka qorso gurigeeda gabadhan hooyadii abeeyna waa dhintan oo iyada qurata ayaa ka soo hadhay dhinaca kale jir wax ku guuleystay tababarkiisii laakiin uu taalay oo aad ayuu oomay waxaanu cababiyihii ay soo saarisay shirkadiisu Joko waxa uu sheegay markii ay wadada isticmaalaan inay u baahan doonaan miya badan oo oomi doonaan oo biyuuna noqon doonaan shidaal jir markii cababiya waxa uu sayda ka dareemay jirkiisa waxaanu riid qorigiisii biyana ay ka soo duulay Joko waxa uu sheegay sodiumta ku jirta biyaha inay ka dhigso jirkiisa mid ciladaysan hiiro habeenkii waxa uu daawanayay TV-ga waxaanu arkay hooyadii oo la wareysanayo wax walba lagu eedeeyo wuxuu sameeyay wiilkeedu kadib iyaduna raaligelin ay bixinaysaa laakiin raaligelintiisa kama qaadanayso aad ayuuna ooyay waxaanu xaqiiqsay dilalkii uu sameeyay oo dhan in ciqaabtiisa ay marayso hooyadii kadib warbaahintu waxay subaxii sheegtay in qolkeeda laga helay meedkii hooyadii waxaanu isku dashay maadaama cadaadis badan saareen warbaahintu hiiro aad ayuu naxay markuu ogaaday in hooyadiisa waxaanu arkay community-da ka soo bixin dadku waxaanu arkay dhamaantooda caayaan oo aflagaadeynayaan hiiro waxaanu arkay teknolojiyada kadib qof kasta committee soo bixinay halkiis ayuu ka tooganayay dilkina wuxuu geystay dhimasho badan qof kasta oo aalada teknolojiyada eegana oo committee soo bixiyay uu diliyay kadib Shayan ayuu u sheegay inuu dilkii magaalada ku dhaco dhan uu soo ka dambeeyay waxaanu gacantiisa ka saaray qorigii kadib Shayan ayaa ku tilmaamay aamin qofkan jecel inuu yahay dilaa kadib hiiro ayaa gabadhii cirka u qaaday aqalada Shayan ka baqaysan waxa inuu ka dheeraado isagu hiiro wuxuu ogaaday qof qaatimka jecel inay tahay Shayan sadaradan looga baahay inay ku taxadiro kadib Shayan waxa ballan qaaday inaan weligii ay ka dheeraan doonin kadib markuu waagi bariyay Shayan gurigeedii waxa soo weeraray askartii kadib hiiro ayaa ka askartii waxa isku duubay Shayan kadib hiiro ayaa askartii waxa dhaxmaray dagaal aad u culus dagaalkaas waxa ku dhintay Shayan kadib aad ayuu murugoday hiiro waxa uu go'aansaday inuu dilo qof kasta oo wadanka jooga halkii jiro ka daawanayay warbaahinta qaabku dilaagu dilay wax qoyskiisuna wuxuu uga digay inay damiyaan mobiladiisa oo aanay bixin laakiin isaga cidna dhageysamayso dhamaantoodna waa bixin iyagoo ku wajahan khatarta hiiro muuqaalkiisa wuxuu ku baahiyay shabakad kasta wuxuu qof kasta u sheegay inuu burburin doono wadankan si uu ugu haro qoyskiisa laakiin dhabaantii cinadkiisa uma qaadan dhab oo iska xaraabisanayma ilaa uu ka bilaabay inuu dilo dad aad u badan dadkii way kala yaaceen iyagoo marmar loo dilayo kadib ijro ayaa hangarayay signalkiisii kadib Shoko ay dadkii dhan u sheegay in iska damiyaan mawladooda oo ay hangarayaan hiiro kuma filan intaas oo qolata uu dilay kadib wax magaalada dhan ku siday wadan taala meeran oo fooqijida dhan ayuu wada gubay kadib ijro wuxuu raadiyay hiiro aakhirka wax weeray hiiro kadib ijro wuxuu hiiro ku qanciyay inuu joojiyo dagaalkan iyo dadkan uu dilayo laakiin labadooduba meesha ay isku dagaalameen oo dagaal weyn ay dhaxmaray waxaan isku bursadeen hawada ay isku duuleen kadib dabaq ay istaageen walna ijro wuxuu sheegay hiiro inuu joojiyo dagaalkan uu wado iyo dadkan uu dilayo kadib hiiro wuxuu cabay caagad biya kadib hawada ay labadoodu isla galeen kadib hiiro ayaa cabeeyay qorigiisii isagoo isla odayga ku rid qoriga ay qorigii ka soo duuleen biyahaas oo ku yeelaayeen sodiumto kadib hiiro ayaa gadagaal soo dhacay maadaama uu shaqeynay jirkiisu kadib ijro gacantiisa wax isku bedeshay qori weyn waxaan ku riday hiiro gantaalo badan waxaanu moodin halkaas u dhintay hiiro ijro ayaa soo aaday fooqii ku jirtay gabadhiisu kaas ay ku qarxeen waxaanu isku dayay intiisa ka kiciyo meeshan ay dhex taalo kadib waxa ku war helay darbad xun oo laga jaray kadib wuxuu ogaaday in hiiro ka badbaaday darbadii xumeed oo ku soo dhuftay waxaanu bilow inuu ka harsado gabadhiisa kadib gabadhiisa ay waxbad ku taagay markii ku tuurna wax soo dhex galay ijro waxaanu taas ka adkaaday odaygii kadib gabadhiisa ay qabtay oo fooqa ayuu ka tuuray hiiro kadib ijro ayaa xanaaqay waxaanu isticmaalay awoodiisii ugu dambeysay kadib isagoo duulaya ay gacantiisii ay jabtay hiiro ugu dambeyntii wuxuu badbaadiyay inantiisii kadib markaas ay ogaateen inuu bixid yahay superhero kadib wuxuu ijro u baxay inuu badbaadiyo dad badan kadib dowladda ayaa shaacisay inuu dhintay hiiro laakiin iyagu ma arag burburkii hiiro ijrona wuxuu quraanayay qoyskiisa wax ayeen caadi oo faraxsanayeen qoyskiisu Joko markuu soo galay gurigiisa wuxuu arkay saaxiibkii hiiro oo weli nool oo gacantiisa ku waayay dagaalkii kadib Joko wuxuu ku farxay saaxiibkiisii inaanu dhiman oo weli nool yahay kadib wuxuu ka dalbaday inuu ciyaaro video game markuu soo jeestay wax ka hor helay inuu saaxiibkii tagay hiirona wuxuu hadii uu jooga kan inuu saaxiibkiisa qura taadheena waxa ku dhiman doona waxaa ka saaxiibkii maanta muuqaalkeeni